waayahay bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda saaxiibayaal kusoo dhawaada isku soo noqodo wanaagsan cashirkeenii sideedaad ku baraneynay cashiradeenii taxanaha ahaa ku baraneynay wordpress basigiisa qaybta basiga ilaa iyo hadda waxaan soo qaadanay 7 cashir todobadaas cashir dib baa loogu laabtaa la baraatika insha Allah wixii su'aalna la soo gudbiyay la yiraahdo cashirka toddobaad oo u dambeeyay waxaan ku soo qaadanay sida loo bedelo loogada iyo title-ka website-ka sida loo bedelo cashirka sideedaad biidnillah waxaan ku qaadan dhigi doonaa hadduu alla yiraahdo sida loo sameeyo footer-ka iyo sida waxyaabo lagu soo qoro sida footer widgets lagu soo diro sida footer-ka waxa ku qoran loo bedelo waxyaabahaas aan ku baran doonaa hadduu alla yiraahdo cashirkeena sideedaad insha Allah soo marka hadda waxaan isticmaalayna waa local hosting waa computerka gudihiisa waaye marka horeyaan usoo sheegnay cashiradii hore in mar walba markii local host aad isticmaalaysid in mar walba laga baahan inaa zambaha apache start dhahdid so marka MySQL-kan inaa start dhahdid database-ka marka insha Allah live wili ma gaarin live-ka waan u gudbaynaa insha Allah bal waxaan rabaa intaan basic horta in aan local hosting aan ku fahamno local hosting isagu wuxuu ku fiican yahay dabcan wax ka error garooway ma wax ka down ka noqonayo ma ahan waa local hosting adiga marka insha Allah waa mar kale iyo anigoo ah engineer Abbas Maxamed Walaal Abbas web designer oo expert wordpress oo haddana idin soo gudbinaya cashirka sideedaad waa sida loo sameeyo footer-ka marka ku soo dhawaada insha Allah marka ugu horeyso waxaan sameeynaa waxaan kicinaa footer-kan kicinaa si aan u daarto apache aan u daarto start MySQL-ka asagana aan daarto kadib waa minimize aan iska leeyahay kadib waxaan kacsanaa browser-kan kacsanaa browser-ka markaan kiciyo kadib URL-ka meesha browser-ka waxaan ku qoraa localhost folder-ka oo failasha wordpress ugu jiraan oo gooltagi ahaan /gooltagi leeyahay kadib waxaan sugaa ilaa oo ka soo kaco localhost-geyga kadib markuu ii soo kaco waxaan arki doonaa waxyaabihii cashiradii hore aan soo sameysano kana ii soo kacay loogadii iyo menu-yadii iyo waxyaabahaas marka maanta waxaan diiradda ku saaraynaa focus ku saaraynaa hadduu alla yiraahdo footer-kan welcome favorite by iyo qaabka loo qabto waaya marka ugu horeysa admin-kan galeynahay admin-ka maxaa lagu galaa horeyaan usoo sheegnay waxaa lagu galaa wp10.gtin admin inaad ku qorto URL-ka oo domain-ka aad raacisid kadib intaralenaho enter markaa dhahno kadib wuxuuna geenaa screen-ka oo login-kiisa waxaan ku qoraynaa username-keena waxaan ku qoraynaa password-keena markaan ku qorno kana dashboard-keena oo galay bistaan hitaalan kadib aan fureenaa kana wuu soo kacay kadib dashboard-kan tageena cashirkeena sideed wuxuu ku saabsan yahay footer-ka macna footer-ka sidee wax loogu bedelaa waayahay laba qaabood aad jirto inaad dhahdid customize inaad dhahdid iyo inaad widget appearance tagtid widgets aad tagtid kadibna aad ka sii dooratid footer-ka ka sii dooratid Astra waxa uu ku fiican yahay footer-kiisa uu kala baxsan yahay laba qaybood waaye qayb koowaad iyo qayb labaad qaybta labaad 4 column ay leedahay ama columns-ka qaab kaarta ka dhigi kartaa tan qaybka marka qaybta labaad waa naga qariyay qaybtan koowaad lama dhahay marka waxaan sameynaynaa qaybta koowaad waa kana qaybtan hoos waxa la footer bar lahaa footer bar-ka waa qaybtan macna footer bar-ka waa qaybtan footer bar section 2 footer bar section 1 waxa waaye qaybtan
footer bar section 2 waxa waa qaybtan oo midig waa marka hadda footer bar kan waxba ma noogu qorno waxaan rabnaa inaan badalno powered by Aster WordPress Theme iyo waxaas inaan badalna rabnaa waxaan sameynaynaa customize alena macnaha right click open customize so marka customize kaas wuxuu inuu badalaha footer bar ko inuu badalaa customize alena وهي سأوجد blue icons لوجد دارت أنت كبدل menus كدارت أنت كبدل widgets كان دارت أنت كبدل blue icons كان على استعمالها customize كان لوجو بدل مركا حربنا footer كخيفتان footer كنا بدل footer أنت جينا مشان يكون انتهي كان أوجد footer widgets على قيفتان كوري footer bar هذا حصلنا footer bar كأصلنا footer bar أكون فينا كده كنا حدي أنا نربين إنه footer bar صوم مقضو هذا لا أوت كنا سعرا سيخروا عليه كنا خرصوما كان هو footer ملهن قيبتان وعليه كنا إسكورسار ساسوكسو كورسار ما لا أوت كان سجن ودور كنا أو section كإنه ديناس إيادو وكان دينعن إيادو طبعا قيبتان جعلها واي aniga سان لا outcome marka current year 2020 welcome to gold tagada gasaan meeshan powered by ina iska bedela rabaa meeshan powered by waxaan ku qoraa design by hay idin iska bedela iga noqotay aga design by marka ذي مؤثر واشوفت كذا استعماله اسكترتير مركا مش مقعي قرنا مقعي وعباس ويب ديزاينر ديزاين باي عباس كدب waxaan leeyahay section 2 nan iyo waa section 2 hadda daa text aan dhaho soo jeedin bidixda وصف حسمه بس مربي إن section 2 أنا كسر موجيو إن شاء الله وحنا روا إن section 2 social menu عن كسر موجيو بس قيبت بلاجنس كمر كان جوجنا أركينا إن شاء الله هذا مرمي إنها قيبت سجودها وقلنا مركب publish علينا هني مركب footer كنسا وبدنا publish مركان كده بسيط كنا كلها بيننا وحالنا نرفرش على نسبتلك ماشي نصوق على سوجدنا كمان welcome to كل تقدمي design by عباس designer footer كنا واي فمركو عاروا ماشان إن ونصوق على social menu جا وايو مادام هذا عن footer bar عن كل واحد جورو footer bar كيفتان هذا نسيب وده إن شاء الله waxaan rabaa inuu noo soo galo waxaan sameeynaa marka widgets aan leeyahay meeshan waxaan ka raadinaa Aster social profiles meeshan ma noogu jiro maahan okay plugin aan ku soo darsaneynaa plugin kaas oo loo yaqaano Aster widgets widgetyada oo noogu soo shubo waxaan leenahay plugins adniga leenahay adniga markaa dhahna kadib meeshan sage plugins ka waxaan ku qoraynaa سيرج بلاجس كان حقولنا Aster widgets حقولنا كنا starter site كان مركي دائما لسقانا بس مربني دائما هذا موضوعنا ودائما مركي وحلا فهمه على لغة الكلام عشان Aster widgets شونا installنا علينا هني جدا بقولكم شرطين موش علينا Aster widgets Aster widgets كان ماشان عربنا معناها فيسبوك iyo يوتيوب iyo انستغرام iyo ku caansan ina meeshan keeno marka nagu soo daraa plugin kaas Aster widgets ka noo qabanayo kana uu shubni activate leeyahay activate marka dhaho kadib activate marka dhaho kadib waxaan u laabanaa appearance u laabanaa waxaan leeyahay widgets aan leeyahay
widgets markaa dhaho aster address aster social profiles waa kuwan intaanan hadda inta kasoo gelin horta intaan waxaa leeyahay footer bar section 2 aan waxaa leeyahay widgets isahra leeyahay widget isahra leeyahay si hadhowda widget oo meesha kaaga soo muuqdo publish aan leeyahay intaan ku laabanaa refresh aan leeyahay refresh markaa dhaho kadib footer bar section 2 aa u socdaa soo maahan waan soo jiidaa footer bar section 2 aa dhex keenaa kana marka title-kiisa waxba ma u baahni inta markaasaan u joogo iconka widgetkiisa waxaan siinaa 16 iska sii colorka soo laabanayna insha Allah add item intaan le add item profile waan furaa waxaan rabaa Facebook ku daro linkiga facebook.com/goal technology day Facebook sasa ku qoran goal technology academy facebook.com/goal technology academy Facebook sana icon kiisa juice icon uu leeyahay Facebook aan leeyahay Facebook kana soo background aan jeclahay markaas u darsado waxaan leeyahay save aan leeyahay dhanaa leeyahay website-kan hadda refresh ku laabanayna marka footerka soo ujeed waa kana noo soo galay hase ahaatee midabku wuxuu naga noqday si blue gorta footerkan midabkiisana waa inaan bedelo midabkiisa waxaan ku bedelaa footer bar haddaan ku jiro soo maaha kana border color background ka kana background waxaan ka dhigaa waxaan loogada yaraa background kana kala ka dhigaa ama soo maaha haddaan madow ka dhigo so mar walba footerka kaladada iyo loogada inay islaadaan u baahan yahay refresh aan leeyahay wax kana footerkeena maadaama marka backgroundka madow aan ka dhigay icon color cadaan aan ka dhigaa colorka customer leeyahay icon colorka waxaan leeyahay cadaan widthkana waxaan moodaa in tanbiihiisa 20 aan leeyahay widthkiisana 20 ahaado alle marka save done hadda website-keena ku laabano marka aan dhaho refresh hadaan dhaho markaas Facebook sidoo kale waxaan ku darsanaa Twitter-kan ku darsanaa add item profile title Twitter linki haskale twitter.com kasto goal tag oo sameysnay Twitter ah twitter.com leeyahay just icon waxa ku qoran Twitter background aan jeclahay kadib waxaan leeyahay save waxaan kaloo ku darsanaa YouTube oo ku darsanaa saddex socialka ugu caansan YouTube linkiga YouTube uu leeyahay /goaltag academy YouTube-keedu wuxuu ahaa hadaan kicinayna insha Allah youtube.com
هي youtube.com وكان أول سكعي عليها جول تجي وكان يوتيوب كان جول تجي welcome see you يوتيوب كان كفرصنا جول تجي سقعنا مركب لينك يا سقعنا كوبيان سوديه معنا انت معنا لينك يا بس إيران عرّس يدو ديكل جلسيو البيشك أوكله جوس أيكون كاكتجي أيكون كيوتيوب كاسارنا أيكون كيوتيوب كاكنا عندي سهف عندي أدم haddaan website-keena u laabano marka aan dhahno refresh haddaan dhahno waa kana saddex social media ugu caansan Facebook, YouTube iyo Twitter. waxaa ii dhiman marka in aan footerka qaybtiisa labaad aan ku soo darsado. waxaan u laabanaa marka customize u laabanaa customize marka u laabto qaybtan footer widgets qoranta haddana ay saaran balse ay daara le 4 column 1 2 3 4 afartooda daar leeyahay daar markaan dhaho kana uu daaray background colorkiis intaan ka bedelaa background colorkiis waxaan siinaa colorka aan jeclahay dooranaa isto loogadeeda isaas ahaan colorkaana siinaa maadaama ay loogada gooltega buluug tahay publishing marka haddaan publish ma haddaan refresh aan dhaho wili wax ma ka muuqdo meeshaan oo footer widget 81 footer widget 82 waxaas ka muuqdo marka meeshaan wax kaaga soo daraa widgetska footerka kana footer widget 81 footerka waa badana about ala geliyaa marka tekstaan soo jeedinaa insha Allah footerka design gareynaa design gareeya hadena marka about goal take academy about goal take academy انت بقى قرا فكرها قلت امسنتها قلت academy is Somali ama is an online learning platform هي دبكة وجا يدعو is an online learning platform that helps Somali students to know more about WordPress website. To know more about web design. Design leeyahay safe leeyahay kadib waxaan leeyahay dhamaale haddaan website-keen u laabano aan dhahno refresh haddaan dhahno waa kana about Goltega Academy asaan soo galay marka xirar boosan leeyahay oo dabka xiriirsan waayahay about waa kana waa kansaday column-ka labaad badana waxaa la gashtaa important links aan la gashtaa marka soo qaadanayna master list icon aan anfacayo footer widget 82 aan gashanayna title waxaan ku qornaa important links
important links markaan dhahno kadib linkiyada had item leeyahay marka item ka marka waan furaa linkiyada ugu muhiimsan meeshaas ku qoraynaa meeshaan linkiyada ugu muhiimsan ku qoraa sida service أو services linkiga أو service كان حريرنا أو service كان حريرنا كوبيان سولي هاي وديسكامنا كيجا أو services icon جوز icon عليها بدنا ايقونada waxaa la isticmaalaa wax tilmaamayo kana kala soo iconka colorkiisa kana ka dhigaysa cadaan ka dhigo save bande refresh cadaan waxa aan sameynaa fiirinayna insha Allah refresh kulaabano جدا important links أو services وهي ويلي ونسي ودينا إن شاء الله item علينا نه فرينا هنقرينا هكذا وسيم همسن about us وقت دان يوح كم بنيجي ليه تمك لينكي جيسا آوي جيسا about us قاعدة about us widgets now linking markan ku basting array just icon dollar kii hor la iga dib ila mid icon kan koriya u doortay item mid kala ku dara hadana para contact us hay contact us asalahay linkiga oo contact us ka waa kana waxaa mudaa contact us ka marka ku dhufanaa sigile la labanimiya contact us ka kana widgets ka ulaana way choose icon deh kedib ora save deh band flash and out way mid kala daraa ama sideeda iskaga dhaafaa soo laabanayna insha Allah hadii wax kale u daraa menu-gan badana waxa laga dhigaa di formula dhex gelinayo kale column-kan saddexaad aan dhaho form standard menu ana kale di la gelinayo quick links ano select menu gambarnayna primary main menu ada safaro asa ahaatee oo dheeraana ay main menu waxa badan ku jira soo ma jeedid badan ku jira marka main menu waa ka bedelaa menu kala gaaban primary ano kala safaro nam hadda flash maxaa dhacayo isla saglamaya menu saxbu igu jiro primary 2 save dhaho waxaa dhacaya haddana hadda refresh dhaho kale ku jirsan ayahay dhib malahan
quick links sidaas menugaas soo dareena dhimanaan widgetka afaraad waxaa la geeyaa addresska soo qaado telephone address contact us address intaan ku qoraa howlwadaag Mogadishu Banaadir Soomaaliya phone telefonka gooltagi 996 49 fakis camal isticmaalo email walaal gmail.com icon colorkiis cadaan la iska dhigo dan u laabto oo fresh aan dhaho kan howlwadaag Mogadishu Banaadir Soomaaliya icons ka bas muxuu u soo saar leeyahay maana icons inuu tan rabaa display icons ajaib saara safaha dana siilaya dana kala u laabana waxaan leeyahay refresh kana addresska telefonka iyo gmailka xogaa waxaa maraysaa Soomaaliya saddex markaan soo gaabinayo Banaadir meesha ka bixinaa Banaadir local uu yahay wadaag Mogadishu Soomaaliya safe aan leeyahay أنا عليها كدب حالي ريفرش عليها وهي عشركيني سديدات oo sidee loo sameeyaa footerka saaxiibayaal meeshan kusoo gabagabeynayna insha Allah waxa fahamnay sida footer loo sameeyo sida footer bar loo bedelo sida social address sida lagu soo darsado sida footerka contentska loogu daro waxyaalahaas oo dhan fahmay insha Allah soo baratikay cashirka sideedad waa cashir aad iyo aad muhiim u ah waa markale oo engineer Abbas Maxamed Laal in Gooltagi Academy oo idin leh dadaal wacan biidnillah.